السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحابتي waa idin salaamay waqti walba idin tahay wanaagsan maasha Allah tabaaraka Allah salaat ala rasuulillah. maanta waxaan rabaa inaan idinkaga faa'iideeyo video ugu dambeeyay aan ka hadlayo oo dhahayo markii mashaakil adiga ay isgelisay ama xag alla kaaga imaaday ama dhibaato oo aadan ka bixi karin aad ka dabaalan karin ay ku qabsadaan waxyaabaha aad ilaahay ula kaashanaysid ummadda ilaahay laga magan galaa. dadka waxa ku jira dad dhibaato badan, dad waxa ku jiro adiga kabtooda aad tolaysid, adiga karfantaada diyaarinayaan, adiga lugooydaada diyaarinayaan, adiga inay ku dhibaateeyaan ay diyaarinayaan. see ku ogaan kartaa maxaa idin kala bixinaayo dikriga ilaahay oo isticmaalaysa rabbi subxaanahu wa ta'ala ka hoosgalaysa ka magan galaysa aayadihiisa quraankiisa aa isticmaalaysa. aniga hore idinku soo sheegay video ugu dambeeyay waxa idin dhahay dib oo aan ka bixi karin aniga isgaliyay ay ugu dhacay si aga dabaashan aan kari waaye ducooyina isticmaalay ayada quraana isticmaalay dhibaatada waxay igu noqotay dhibaato adag. waxa igu dhacay wax la dhaho ku qabatay iyo qadar alla waa la qaataa. waxaan isticmaalay ayada quraani, waxaan isticmaalay adciyo sida ducadii hore aan idiin soo aqrinayay. tacliiqaadka TikTok waa soo dhigay, dadka YouTube kama geynin laakiin inta TikTok igu xiran oo badana iga soo wada dalbaday, intii qaaska igala soo xiriirtay, intii idla soo hadashay, inkasta in walba oo dhibaato haysato qof walba dhibaato ku filan gurigiisa ku joogaa, ama ilmihiisa ha ka haysato ama ninkeeda ha ka haysato ama hooyadeed ama walaalaheed ama aabaheed ama adduunyada nolosha sidaas ay ku dhisan tahay. laakiin waxaa dhib ah meel waxna kaa soo galaynin, dhibaatooyinna kaaga imaanayaan. aniga dhibaato camiiq oo aniga xag alle asdhahayo facalal khayr ka falo oo aniga lugahayga ama gacmahayga ku keensado ku doontay ayagu dhacday si aaga dabaashana aan waaye. Soomaalidan waxay dhahdaa dadka xishoodka isdhaamaan, wajigana waxa timaha looga leexay sariigta xishoodka waaye. markuu alla kuugu soo sallado dadaan xishoonaynin, markuu alla kuugu soo sallado afkaadana waxyaabaha qaarkood ama erayada qaarkood aad kala xishoonaysid, dadka waxaa laga magan galaa rabbi subxaanahu wa ta'ala. alxamdulillah xarmeena shariifeen aan joogaa, cilmi intaan soo bartay iyo cilmi dhagood in igu filan iyo da igu filan maanta waa ku jiraa. arrintaas waxaa aga dabaashay rabbi subxaanahu wa ta'ala ka hoos galay iyo aayadihiisa iyo adciyadeeda. maasha Allah tabaaraka Allah murug aad u xun ay qabsatay. waqtiga hadda lagu jiro sun lagu qasayaa, sun wax la dhaho lagu qasayaa, sida aga dabaashay. hore waa idinku soo sheegay adciyadii iyo quraankii iyo aayadihii aad ku akhrisanaysay tahliisha, ama midii la cabaaya ha ahaato ama midii la isku buufinayo ha ahaato. waxa kale oo isticmaalay waxaan waxa waa cusbo shiidan, cusbada nooca aad rabtid hayso, ama himalaaya ha ku ahaato ama midda qashinka ha ku ahaato. ani laakiin gurigeyga waxa firaash fidsan yahay waaye. hadduu gurigaada balaad yahay xataa waa isticmaalaysaa cusbadan. waxaan ku aqrinayay suuratul kawthar, inaa actaynaaka alkawthar 9 jeer aan aqrinayay maalintii. markaan aqriyo suuradda cusbada ku tufaayay, waxaa sameynaya cusbadaas guriga banaankiisa iyo gudihiisa ku firdhinayay. maxaa ugu firdhinayay waxaa kala saari waaye wax khalad ah iyo wax sax ah. ma anaa waalan masacadana laga heesayaa iyo dhibaatooyin badana igu dhacay. dhibaatooyinka oo ah buuq oo ilmahaada kaaga imaanaynin, buuq oo ninkaada kaaga imaanaynin, buuq oo aanan shaqo ku lahayn laakiin aad facalal khayr ka sameynaysid, dadkii facalal khayrka u sameynaysana aan kuu jeedin. ilaahay ka magan gal, ilaahow anaa is warday, sheekada anaa isku keenay, ilaahow iga bixi, ilaahow iga bixi. guryo badanna way ka jirtaa arrintan, guryo badanna way ka jirtaa, gabdhaha badan ila soo xiriiray. maasha Allah tabaaraka Allah qof oo kabtiisa tolaysid oo korfantaada diyaarinay oo u jeedid cayni caynag. dadka hadda jooga subxaanallah ma la xishoonayo, alla ma laga cabsanayo, waxa la iskugu dayaya adoo indhahaada shanta yihiin inaa indhaha lagaa baxsado. meeshina aan qof weyn ka ahay aayadahaasaa isticmaalay. waxaan isticmaalay inaa actaynaaka alkawthar 9 jeer ku aqriyay. qof walaala ay baray, jazaakallah khayran. maasha Allah tabaaraka Allah ummadda muslimka waxaa ka faa'iideysaa ay jinsi ay noqoto. waa isticmaalay, waan ku aqrinayay maalin walbo. saasaa gacanta ugu shubaa cusbadii oo dhan, marka aayadihii saas ugu aqriyo, saas ugu aqriyo. waxaa rabay inaa kala ogaado wax badan. guriga hareerihiisa banaankiisa ku firdhinayay.
يعني waxa ay qabsaday iktiaab ama waxa la dhaho maxaa la dhahaa confuse nafteeda isku keenay bini aadankina oo sheekada kula garanaynin maasha Allah tabarakallah dadka hadda jooga waxay wada badan yihiin jisaariin dadka hadda jooga waxay wada badan yihiin naagaha waliba waxay u badan yihiin maxaa la dhahaa inay sharafta ka qaadaan waxay u wada badan yihiin inay ku lugooyaan waxay u badan yihiin si aday inta u taagan tahay oo u lugooy weysay qalbigaada nadiifka ku moodaysaa sadaqadaada alla ka cabsigaada ku moodaysaa maasha Allah tabarakallah xaaladaas markay ay qabsatay yawmiyan marka taqriiban ay 9 maalin ii marayso wixii ay rabay inaan arko waa arkay ilaahay wuu i tusay ummadii asfahmi weynay ama ummadii rabtay inay ilugooyso anoo hadlin ayaga hadleen Soomaalidu maxay dhahdaa intuu dib qaba hadlin dheef qaba hadlayso guriyaha Soomaalida dhexdooda waxa ku jiraan dad ummad waxaan nahay Soomaali maslaxadooda ka siinay Soomaaliya oo dhan waaba ka simanahay sheekadaas markaas leedahay walaalkaa waa ama wiilkaada waa ama jiiraankaada ama saaxiibadaada waa kabtay ka goynaysaa kaba leedahay iyada kabtay ka goynaysaa waxay ku dhex gelinaysaa dhiiqo oo laga bixi karin dhiiqadaas waxa aga baxay ducooyinkii ay idin soo sheegay ina cadayna kalkoothar kulli yoom aqrinaay kulli yoom waa ku tufaayay cusbada guriga banaanka ku firdhinay anoo juuq dhihin oo af Soomaali ku hadlin wala af qalaad aan ku hadlin wala soo butaacay sidii ilaahi aan ka bariyay oo cad soo baxday waxaan leeyahay dhibaatooyin ay idin haysto ogahay waa fahmi karaa wax kalena waa idinkaga faa'iideyn doonaa kowthara isticmaalay 9 jeer cusbada ku akhriyay saasa guriga ugu firdhiyay banaanka guriga banaanka qof walba wuxuu la yimid qaraar asaga kaligiis u qaas anigoo hadlin anigoo waxba sameeynin anigii ilaahayna waxaa jirtay sariira noo qaas ama sir ilaahay aan la sameeyay oo waxa sameeyay i'tikaaf nafteyda iyo ilaahay naga dhaxeeyo saligeegan qaadana ilaaha bariyaa ilaahu tan waa igu dhacday ana isku dhigay saanan ka waday ilaahay oo khayran ka waday sharal igu bedelay ilaahu arintaana kala bixi anoo hadlin kala baxnay hadda banaanka iyadoo la taagan yahay la hadlooya banaanka ilaahay ana kala badbaadiyo ummadaas marka Soomaali waxaan leeyahay dhibka ugu carrisan ku garo horta adiga ha noqon qof taarikada salaadad hadaa salaadaada ay toosinayn ani minku sheegi kari hadii oo alla dhawaashadaadana ay qafiif tahay ma sheegi kari laakiin wax walba waxa uu kaashanay ilaahay badal aanaag la hadli lahay ilaaha uu kaashanay iyo nafteyda ilaahu tan way igu dhacday si aga bax ma kasaay ilaahu iga badbaadi ilaahu iga dabaalay ilaahu dabaashan ila kaal ilaaha ila kaale maanta taasa idinkaga faa'iideeyay ka faa'iideey shawcan aan idin leeyahay guriyaha Soomaalida dhibaa ku jiro dhibka Allah naga bixiyo xasadka Allah naga qabto xasadoo dhan asaga afkiis ku hadlay kii sunta ku qasilay intuu sunta ku qasin asaga afkiis ku hadlay wuu soo butaaya waa waray qayla dhaan waa waray asaa dhahay taasa kaaga faa'iidinay suuratul kawthar marra dhaliilsanin iyo cusbada ma sha Allah tabarakallah shacwada ma ahan quraanka ilaahay isticmaashay aynka iyo xasadka iyo xaasidiinta iyo xaquudiinta iyo dadka mujrimiinta in ilaahay ka dheereeyo ما شاء الله تبارك الله صلاة على رسول الله تاسن وكاغ فايدنا والله بالله والله arrintaas isticmaal ana TikTok like ma karabo fluus ma karabo lacag ma karabo adaan kaaga faa'iideynaa lugooy badan ku haysto adigaas fiirsanaayo caloosha ka murmursan tahay waxaan ku leeyahay anta caloosha iskala hadli lahayd oo ma sha Allah xanuun kugu dhici lahay cashan dad dartiis anqidi nafsak ilaahay badbaada ka dalbo ma sha Allah tabaaraka Allah qofa ii sheegay waana ka faa'iiday فإذا وين كهلا ما شاء الله تبارك الله مركز 9 مالين آخرين نتيجة في عنان كأرك إلا هذا ما شاء الله تبارك الله بناقة كتاجنا ما أنت نظيفة كأهي أنا ولي بسي عاموسن هذا الكسيد هاي وإذا السلام فإذا الشو أنا إذا ليه هاي سورة الكوثر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.